والصلاة والسلام على رسول الله. guddoonka baarlamaanka iyo golaha wasiirada golaha baarlamaanka maamulka gobolka heer gobol iyo heer degmo saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan bahda saxaafadda bulshaweynta Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaanna midda degmada Jowhar waxaan ku salaamka salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. bacda salaam Allah ayaanu mahadcelinaynaa oo annagoo nabada nagu soo celiyay caasimadii dawladda Hirshabeelle ee Jowhar. waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo soo dhaweyntii aan loo kala herin ee guud ahaan mas'uuliyiinta baarlamaanka golaha wasiirada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan heer gobol iyo heer degmo. runtii waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsantihiin soo dhaweynta ballaaran ee aad maanta noogu samayseen caasimadda Jowhar. waxaan gaar ahaan u mahadcelinayaa abaabulka wanaagsan ay sameeyeen maamulku gaar ahaanna bahda waxbarashada qaabka ay uga qayb qaateen soo dhaweynta. runtii waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadaalka ay bulshadu samaysay hadday tahay fatahaadihii webiga hadday tahay amnigii dadaalka iyo isku duubnida ka muuqato bulshaweynta Hirshabeelle. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. ha lagula sii dhowaado waa intaasoo lagula sii dhowaado dadaalkiina runtii waa ka mahadcelinaya isku duubnidiinna. saad wada ogsoontihiinba maalmahan safar ayaan ku maqnaay dalka dibaddiisa iyo gudihiisa degmooyin ka mid ah stateskana booqashaan ku tagno degmada Cadale ay ka mid tahay iyo Warshiiq oon guud ahaan fiirinaynay ummadda nolosheeda iyo amnigeeda iyo horumarka guud siduu yahay. waxaan ugu dambayn shir muhiima aan uga qayb galnay shirkii dalka doorashadiisa iyo horu socodkii doorashooyinka hadday aqalkii sare tahay iyo hadday golaha shacabka tahayba looga hadlayay habraacyadii si guul ayuuna ku soo dhammaaday shirka madasha wada tashiga qaranka. waxaana ka soo baxay qodobo iyo habraacyo la isku waafaqay insha Allah dalkuna guud ahaan doorasho u aaday. inta dhimanna aqalka sare waa la wada dhamaystiri doonaa. annagana insha Allah haddii la raalli ka noqdo wiiga soo socdo waxaan geli doonaa doorashada aqalka sare haddii la raalli ka noqdo insha Allah. waxaan rajaynaynaa doorasho ummadda ku wada faraxdo inay dhici doonto Hirshabeelle haddii la raalli ka noqdo si xaq ah oo xalaal ah oo qof waliba ay ku qanacsan tahay ayaa doorasho loo qaban doonaa haddii la raalli ka noqdo. waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhib ka dhacay deegaanka beledweyne iyo degmada beledweyne iyo meesha la yiraahdo Kabxanley iyo u dhaxeeyo dad walaalaho diris ah wada dhashay dhib ka dhacay oo dad muhiim ah oo qaali ah lagu waayay. waxaan leeyahay intii dhimatay Ilaahay u naxariisto inta dhaawacantana Allah caafiyaan leeyahay. dadku waa walaal waa ahal waa diris meel la kala tigi maayo. intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacantana Allah caafiye yaan dhibaato kaleentood ay dhicin oo dhiig lagu dhaqin. dadku waa walaal qoftii dhimato annaga inaga dhimantay qoftii dhaawacantan annaga inaga dhaawacantay. dadku waa walaal wixii dhacay dhaceen hal laga xaajoodo dhibkii dhacay yaan dhibaato kaleentood iyo dad kale oo qaali nagu ah aan lagu weynina. waxaan ku talinayaa in dib u heshiisiin iyo wada hadal arrinta lagu dayo laga joojiyo gacanka hadalka iyo waxa dhibaatada iyo dhiigga daadi karo in laga waantoobana waan kula dardaarmaa dadkaas. diyaar waxaan u nahay Hirshabeelle haddaan nahay insha Allah inaan gogoshi ay ku walaaloobi lahaayeen dadkaas ku hadli lahaayeen inaan u dhignana diyaar ayaan u nahay. waana rajaynaynaa iyaguna dad walaalahoon meel kale tegayno Ilaahay meel uu ku wada nooleeyo waaye in ma aragtaya si degan ay u wajahan xaajadaas wixii la kala tabanayana fadhi in la isugu yimaado rajaynaynaa. aad iyo aad u mahadsantihiin. guuleysta runtii mar labaad iyo mar saddexaad waan ka mahadcelinayaa abaabulka ka muuqda bulshada ee amniga iyo ma aragtay fatahaadaha iyo xaalad kasta.